Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaanu ka hadli doonaa bini aadamku ugu horayntii halka uu ka yimid iyo waxay ahaayeen iyo waxay qabin jireen. bini aadamku siduu hadba isku soo bedbedelayay 7 milyan oo sano ka hor bini aadamku daanyeer dhammaystiran buu ahaa. daanyeerkan magacooga waxaa lagu magacaabi jiray hominiska waxaa loo sii qaybin jiray 3 qaybood oo kale ah homo spiniskaasi waxay ahaayeen iyagu dad ugaadhsataa, dadkaasoo ah dad daanyeero ah. waxay lahaayeen maskax waaweyn iyo ilka yaryar iyo socod soo qalooca, waxayna cunto ka dhigan jireen dhagaxaanta. sidoo kale kala jireen hominids, australopithecus and homo erectus. saddexdaasina saddex kale ahaayeen oo kala jira 7 bilyan ka hor. humanidsku waxay ku noolaayeen qaaradda Afrika. waxay u eekaayeen daanyeer. Qolfoofka bini aadamka oo kalena way u eekaayeen, ilka yaryarna way lahaayeen, waxay ku cunaan, ugaadhsatana way ahaayeen. australopithecusku 4.4 milyan years ago waxay ku noolaayeen qaaradda Afrika. waxay ahaayeen daanyeerka cawflaha loo yaqaan oo kale. waxay cuni jireen dhirtay cuni jireen iyo geedadka. laba qaab baa loo kala qaybin jiray, qaab human oo kale iyo qaab jambinisa oo daanyeera. socodkooguna kolba wuu soo toosiyay sida bini aadamka oo kale inay usoo socdaan bay dooneen. homogenouskuna 2 sano oo milyan oo sano ka hor ayay ku noolaan jireen iyaduna qaaradda Afrika, oo badh ka mida bini aadam caadiya bayba ahaayeen. iyaguna waxay ugaadhsan jireen xayawaanada waaweyn sida libaaxa. iskala bedelkii bini aadamkuna waa halku hore uu kaga yimid. cuntaday kaga bilaabeen inay cunaana ugaadhsi bay ahaayeen. qaaraday kasoo bilaabeen Afrika ay ahaayeen, markii dambena adduunka oo dhan ayay ku baaheen intaasoo milyan oo sano ka hor. iminkana waayna ka nala leeyahay waa idinkii dadka wax qabsanaya. makhluuqa ugu weynay ugu fiican ilaahay uu barakeeyeyna waa bini aadamka. sheekadoodii iyo halkay kasoo bilaabeenna waa taan idin sheegay. iminka siday u qabsadeen waxna waa taad ogtihiin. adduunka dhan noolaha ugu fiican ee ugu maskaxda badanna waa iyaga. la tawfiiq.